تليفونك قراع هبلي وحلا إذا كده حيا وع ولا لو وحنا كل شيء يا بشا بركة سبا كشرنا إلهي بركة دم بيجي إلهي هنوضاف إلهي درتي بكو عفية أدقنا يعفي أنت أصله شيطان هد اللوجو إلهي دم دا في سنة كوهشت ثواب وينها اللقو قرا أنت هكب خير كلمة دي أنا واحد كسب سنتها هاي إلا يسعفيه بشان بركيسن إن لوجا فائدة يستو دام إلهي أن كربنا إنه نار تنجح حريه إلهي إنه إنجا أقبله خير فربضان أي لا ذهي يفضائل فربضان إنه أوجا فائدة يسنه إن بحنه تسامح يا إن عفنه ولا له نكله أو أي وحنا نحمره ها هذا درس ها هذا صاحبه ها هذا ضد قرابه ها هذا وحكة دحية قناعسته دينع والبا إن قفك أو ضريمه إلهي سبحانه وتعالى سيدا أو تعليا هي أو ربا أي تهي إنا عفي سيد ولا الكاغا كلي سيدا أو إلهي كوغن حريسنا هيو دنبيغاغا أو كوغن دافيو إنا تهي إنا العفي سيد ولا الكاغا كلي شيطان كوحو كدي داليا إنا لبدا قف نحدود عفيس كدعين عداودودنا هبين يمال أي تاغناته أرنتاسنا أساقو مضحك هذا وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم شيطان واكقوستي كوة كان يا جزيرة العرب نحدي ذا شوغا إني عابدان وكقوست لكن وحوسن كقوسن إنه اسكدره ذاتك إلهي وذا عابدية وقلبي جودو هل ميلو تشيدو وقبله ذو واحد أي تهي وكتاب كودو واحد أويهي والنبي جودو واحد أويهي هدو كوا يعسق إني عابدان وحونا كقوسن إنه اسكدره صدح arrimood oo waaweyn ayaa markiiba ku sugan afwiga iyo cafinta awalan waxa ku sugan rida arrahman ilaahayga rahmaanka ah oo ka raali noqdo waana waxa ugu weyn oo aan raadinaysa waxa ku sugan irgaaman li shaytaan shaydaankiyo aad duleysay oo sidoo ka rabay ka waayay oo duloobay وحاكسوا الحصول على الثواب العظيم إنا كوجو ليستد أوهشد ما لنا عضو باهي بدن تهي أجر وين بدن وآدي وين نهشد ولذلك إلهي سبحانه وتعالى عفس كوحو كبحيا دم داف وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مينا نشعلين إلهي إنه يدين دافر وتعش بحية أو عافية أو ولاله إنك لسامحة إلهي وإدين دافية وكان النبي إنه يري عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له قفك أن نحريسا لو من نحريسته قفك أن دافنا لو من دافن مربط إلهي إنه كون دافع ولا لها كله وحا أي كوغو سميين وأن مناسب ككو أهين انت عندها اسكو قبستid ونفي الشيطان لديرتid سي إلهي كوغو دافع ودافع وحا كميدا محاسنتا يا وناغا او ليهي عفويغو وحو سبب او يهي إلا غارو المودة والمحبة بين الناس
inay dadku isjeclaadaan oo galgacayl u dhex maro waxaa lagu gaaraa inaad ka bilowdi adigu waxa lagaa galay oo aan munaasabka ku ahayn inaad cafisid oo walaalkaagaa cafisid ilaahay waa ka odhanaya walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a ma sinna xaaladda xun iyo midda fiicani ma sinna idfac bilatii hiya axsan mar walba waxaa ka horgeysaa xaaladda xun oo lagula imaanayo midda wanaagga badan ka horgee oo waxaa noqotaa qofka mar walba asagu wanaagga bixiya qowlka wanaagsan iyo ficilka wanaagsan taagnaada maxaa ka dhalanahaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim kii cadaawaddu idinka dhexaysiya adiga waxaa imaanayaa inuu kuu noqdo weli saaxiib dhow inuu kuu noqdo oo dhab ah ayaa imaanaysa maadaama adoo ka garle aad bixisay cafis xoolahaagii buu qaata waa cafisay cirdigaagii iyo sharaftaadii buu wax ka sheegay waa cafisay waa ku dilay waa cafisay dhibaatooyin badan buu kuu geystay waa ku khiyaanay waa cafisay maadaama aad noqotay ninka cafiga bixiyey dhibbanahana ahaa waxaa imaanaysa in waxa weeyaan uu kaa dhigto saaxiib dhab ah oo uu daacad ku noqda imaanaysa maxaasinulcafwi oo la bixiyo dadka la cafiyo waxaa qofku ku gaaraa darajo uunan si kale ku gaareen ilaahay agtiisa waa kan nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka imaamu muslim 3 arrimood maa naqasat sadaqaة min maal sadaqa la bixiya maal ma nuqsaamiso weligaa ha ka baqin wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa ciza addoonna cafwi uu bixiyey ilaahay uguma ziyaadiyey ilaa ciziya sharaf mooyaane haddii dadka ay la tahay inay agtooda aad noqonaysid qof liitoo laga adkaaday cizi iyo sharaf baad ku gaaraysaa ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala aadan dariiq kale ku gaarteen wamaa tawaadaca axadu lilaah ilaa rafacahu allah qof ilaahay dartii isku liido u tawaaducaa ma jiro ilaa ilaahay baa kor yeela oo markaa ilaahay dartii u tawaaducdid sha'nigaaga ilaahay weynaynaya markaa cafisid ayaa ilaahay ciziya sharaf kuu siyaadinaya walidaalika baa nebiyullaahi muusa calayhi الsalaam ilaahay uu weydiiyey su'aalo 6 ah waxaa ka mid ahaa faayu cibaadika acaz addoommadaada kuweebaa ugu sharaf badan alladii idaa qadara gafar waxaa ugu sharaf badan baa ilaahay yidhi midka markuu awoodo inuu aarsado iska dhaafa oo cafiya waa awoodaa inuu dadkii dhibkaa u geysta tilaabo ka qaado laakiin wuxuu fiiriyey xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu doortay si ilaahay asagana ugu dhaafo oo ilaahay u cafiyo inuu addoommada iska cafiyo kaas weeye cafwiga dadka la cafiyo oo la tanaasulo waa min sifaati اlanbiyaa waa min sifaati اlmuttaqiin waa min sifaati اlmuxsiniin dadka ilaahay ka baqay oo muxsiniintaa sifaadkooda weeyaan waa kuwa jannada loo diyaariyey ilaahay muxuu leeyahy wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannaةi carduha الsamaawaatu wاlأrض uciddat lilmuttaqiin jannada weyninka badan oo sidaa u waasica ah ilaahay waxaa loo diyaariyey kuwa muttaqiinta waa kuwa aladiina yunfiquuna fi الsaraaءi wالضaraaءi wاlkaadimiina اlغayda maxaa ka dambeeya wاlcaafiina can الnaas dadkay cafiyaan wallaahu yuxibu اlmuxsiniin dadka ixsaanka sameeya oo dadka cafiyana ilahay waa jecelya bal u fiirso waxaa ilaahay u ballan qaaday jannada qiimaha badan dadka ilaahay ka cabsadaa oo sifaadkoodana ay ka mid tahay inay cafiyaan dadka inay cafiyaan waalcaafiina can الnaas wa ahlu اlixsaan ambiyada ilaahay markaa fiirisid fi الصaxiixayn min xadiidi ibni mascuud wuxuu leeyahy cabdullaahi ibni mascuud nebigaa maalin eegay isagoo ka xikaayoonaya oo ka sheekaynaya nebi ka mida ambiyadii hore darabahu qowmuhu faadma'uu
qoomkiisii baa garaacay way beeniyeen way ka hor yimaadeen garaac bay ugu dareen markaasuu dhiiggii ay ka daadiyeenba wejigiisa ka masaxaya xaaladiisa oo halkaa maraysa ayuu wuxuu leeyahay nebigaasi allahuma اغfir liqowmii fainahum laa yaclamuun ilaahow u dhaaf qoomkayga ilaahow u dhaaf waxba garamahaya waxba garamaya ilaahow dhaaf isagii oo dhiig ka socdo oo dilan ayuu ilaahay dembi dhaaf u weydiinaya waa ka nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam qof ma jiro dhaawac loo geysanayo dhaawacaas loo geystayna sadaqaysanayo qofkii u geystay cafinahaya ilaa kafara allaahu canhu midla maa tasaddaq ilaahay wuxuu u dhaafaa intii uu dhaafay oo kale ilaahay u dhaafa subxaanahu wa tacaala nebigeenna calayhi الصalaaةu wasalaam tilmaamihiisa waxaa ku qornaa kitaabkii injiil ahaa ka nebigu yidhi maktuubun fi linjiil waxaa horay loogu qoray injiil laa fadl walaa galiidun walaa sakhaabun biاlaswaaq walaa yajzii biاsayi'ati midlaha bal yacfuu wayasfax ma aha nebiga imaan doona oo ilaahay soo saari doono oo ambiyada lagu khatimi doono mid qalbi adag oo lisaanka kan oo suuqyada dhawaaqa suuqa qayladhaan la taagan ganacsi iyo wax la mid ah qayladhaan suuqa la taagan ma aha waxaa lagu tilmaama walaa yajzii bisayi'ati midlaha xumaanta lagu samaynayana ayadoo kale kuma amaalgudo bal yacfuu wayasfax wuu cafiyaa waana iska dhaafaa wuu cafiyaa tilmaantaas waxaa lahaa nebigeenna calayhi الصalaaةu wasalaam waata caaisha odhanaysa radia allaahu canha man taqama rasuulu اllaahi linafsihi qad rasuulka alleh weligiis dhibaato iyo xumaan loo geystay marnaba kama aarsanin naftiisa uma aargudan haddii diinka ilaahay lagu xadgudbo tilaabuu ka qaadahay dadka ku xadgudbo laakiin wixii asaga naftiisa ah nebigu marnaba ma aarsanin calayhi الصalaaةu wasalaam arrinkaa isagaa wuxuu tusinahayaa walaalayaal bishaan barakaysan qiimaha ay leedahay ilaahay barakeeyey iyo cadamada ilaahay agtiisa ay ka leedahay iyo khayrka aan raadinayno inaynu xisaabta ku darsanno inaynu bixinno cafiska bixinno maxaan kaloo ku helaynaa nebiga calayhi الصalaaةu wasalaam wuxuu yidhi tuftaxu abwaabu اljannati yowma الاثnayn wa yowma اlkhamiis maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa jannada irdaheeda waa la furaa fayagfir اllahu likulli cabdin laa yushriku biاllaahi shayئa ilaahay waa u dhaafayaa addoon kastoo ilaahay aan u shirki yeelin ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa ilaa qof asaga iyo walaalkiisa ay cadaawa ka dhaxaysa maahane fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasطalixaa andiruu haadayni xataa yasطalixaa andiruu haadayni xataa yasطalixaa marka malafkooda la soo rafciyo oo isniin kasta iyo khamiis kaste loo dhaafayo qof kaste oo aan ilaahay u shirki yeelin waxaa laga reebayaa oo keli ah laba qof oo muslimiin ah oo ilaahay aan u shirki yeelin laakiin cadaawad ay ka dhaxayso ayaa la leeyahay labadaan u kaadiya ilaa malafkooda ilaa ay soo heshiiyaan u kaadiya labadaan waa laga reebaya haddii khamiistii hore lagaa reebay oo isniintii lagaa reebay oo bishii hore lagaa reebay sanadkii hore lagaa reebay dadkaas ilaahay khalqigiisa ah oo faraha badan oo malaayiinta ah oo jannada irdaheeda loo furay oo ilaahay u dhaafayo haddii malafkaagii la soo celiyey oo la soo celiyey oo la soo celiyey miyaynan habboonayn inaad noqotid midka tanaasulo adugu midka naxariista adugu isagu raadiya midka mansilada sare ilaahay agtiisa dalbada midka cafiga bixiya oo asagu tanaasula inaad noqotid miyaysan habboonayn si ilaahay kuugu dhaafo subxaanahu wa tacaala si aad ciziya sharaf u gaartid arrinkaa isagaa daruuri weeyaan dadka waxa dhex yaallaa wax badan baa dhex yaalla bani aadam baa la yaho waa la isqoomaya ganacsi baa lagu dirirayaa qabiil baa la isku cadaawaysanaya
derisnimaa lagu dirirayaa saaxiibnimaa lagu dirirayaa hawlo badan iyo tartan badan oo dadka ka dhaxeeya ayaa cadaawad ay ka dhalanaysaa telefoonka garaac hebel iyo hebel waxbaa idinka dhaxeeya wac walaalo waxaan kuu sheegayaa bishaa barakaysan baan ku jirnaa ilaahay barakeeyey dembigayga iyo dembigaagaba ilaahay ha noo dhaaf ilaahay dartii baan kuu cafiyey adiguna i cafi intaas dheh shaydaan ha dulloobo ilaahay dembi dhaafkiisana aad ku heshid ثواب وين هاللجوء قرا أنت هكبخيل شلا هذا أنت أسكب بخيل يسي ما أنت هكب بخيل شلا هدو شيطان ملك وجحرتي ما أنت يون الملك وجحران شياطين تولى كتين ذي ووينا وأنا حريهين هراء الصعاب أذو واحد نقطتين كرادية عفوية طلبة أذو أحد بناها اللي بي عفوية طلب وكم جاريس ولذلك كما النبي نوحي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ما يدين شيئا وحك فضل بدن درجة صونك إيا الصلاة إيا الصدقة قالوا بلى يا رسول الله رسولك إله هذا ونوشي مركز النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين ضدك الدحدو دؤوا لها قاتشيو أيا صونك كسر رأيه وكخير بدن صيامك أو صونك إيا الصدقة إيا الصلاة وحاكسر رأيه لبدا قفا وحكا حيان أولياء ورولالك أو تنازل ولله درتي وعفي لينا وفساد ذات البين هي الحالقة أي النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك الدحدودة أو فسادة أو عداوة أي نحتى الله هي الحالقة ومد حيرة يسويها ما هن معناه يدو إنه حيرة يستنت معها تحلق الدين دينك أي حيرة يسا محاك النصيب درن قف جندي إرده دي انت الله فري ملف كيسي اللي سوعي لو دم بدافنو عن لغو دارين محاك النصيب درن محاك النصيب درن قف الله الشيغي إن لبحنا هيا دم بدافو كهلا هيو ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأن ديار وهين وأن آدهين محاك النصيب درن قف ليري هداع في سيد إلهي أكثي زار رفعة يدرجة سنة كجاريسان وأن آدهين وأن أسعن محاك النصيب درن دين كيسي أي حرم يقفك عيساقا أرنكاس آنو استاغ وأيهان ضمبه dadku waxay isku khilaafaan oo ku diraan wax aad u liito taafiic aad u liito ayay ku diraan meeshaan aan rabay inaan ugu dago kireysta dukaankan hebel baa ifallisay gurigaan aan rabay inaan gato hebel baa saas ii galay badeecadaas ay soo degtay hebel baa iga daba keenay hebel baa suuqa dacaayadaas ii galiyay hebel baa waxaas wax ka sheegay wax ka sheegay wax noocaas oo taafiic oo inta la cuno xamaamka iyo musqusha la geynayo ayuu walaalkiisa muslimka cadaawad u haya intaas oo sano ayuu cadaawad u haya oo wax aad iyo aad u nasiib daran wax aad iyo aad u nasiib daran qof baa dhimanahay markaas uu leeyahay waligay cafin maayo qofkaas asbuuci hadda la soo dhaafay siday dadku ugu bakhiileen cafwiga asbuuci hadda la soo dhaafay dhexdiisa waxa dhimatay hooyo da'deedu 60 sano iyo wax ka sii weyn 70 sano taqriiban ah caruur badan bay ka tagtay hooyada waan garanaya caruurta ay dhashayna waan garanaya qabrigii baa la dhigay hal cafiyaal wixii deyn ku lahaa ha sheegteen deyntoodii meydkana hal cafi gabar ay dhashay oo weyn oo caruuro iyo qof weyn ah ayaa tiri hooyaday deyn baan ku lahaa cafina ma hayo deyntayda in la iga siiyo maahan cafin ma hayo waa hooyadeed uurka ku qaaday naaska u deysay saxarada iyo kaadida ka tiraysay maalinta ilaahay la kulantay hooyadaasi oo ugu baahi badnayd in la cafiyo ayay tiri cafin ma hayo deyn baan ku lahaa leegas waa asbuuci hadda la soo dhaaf hooyo aan garanayo ilmaheedana aan garanayo balfurs dadka waxay joogaan mustawaha heerkaas ah ayaa bani aadamkii qaar kamida ay marayaan inay cafwiga uga bakhiilaan
hooyadood oo ciidda ka hoosaysa ma yara kuwa kale oo wada dhashay oo maal dhaxalihii ka dhaxeeyay oo qaar ay dhinteen kuwii kalena ay leeyihiin aakhiro ilaahay hortiisa maxkamad la soo fuulahaya dhaxalkii yarka ahaaba waagi iga khiyaan oo ay u quuri waayeen cafis ma yara kuwa habeen iyo maalin is haysta oo wada dhashay ilma adeerka ah walaalaha ah habeen iyo maalin is haysta cadaawadda ka dhaxaysa laga yaabo inaysan ka dhaxaynin intaasoo ummadood oo kale aysan ka dhaxaynin uu jeclaan lahaa inuu halaagsamo maalkiisu baaba'o xabsi uu dhigo uu dilo uu tamaninayo maxaa lagu dirirahayaa damac wax yaroo adduunyaha lagu dirirahayo ilaahay intaynu ka cabsanno aynu cafinno walaalaha nin baa masaajid ka dhagaystay cafwiga iyo qiimaha u leeyahay gabadhiisii baa la dilay diyadii baa diyaar loola ahaa bannaanku u baxay telefoon buu diray waxba idinkama rabo ilaahay darteedii cafi qof dhan baa laga dilay diyadiisii baa diyaar loola yahay ilaahay dartiis buu cafi gabarina hooyadeedoo dhimato qabriga ku jirtay cafiskii u diid inay cafiso soo jeedo saasaa bani aadamku u kala duwan yahay maxaa la rabaa marka arrinka in la faafiyo oo la baahiyo dariska laga bilaabo qaraabada laga bilaabo saaxiibada lagu xijiyo sidaa in loo wado bishaana yeysan kula dhaafin haddii walaalkaa iyo adiga wax idin dhaxeeyaan maalmaha yeynan kula dhaafin tijaabi waxaad helaysaa deganaansho qalbiga ah waxaad helaysaa barako cimriga ah waxaad helaysaa deganaansho gurigaaga ah ayaa dareemaysaa helaysaa tijaabi ilaahayna hayna waafajiyo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة